wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa maanta gaari ambalaas ku wareejiyay isbitaalka guud ee degmada Sheekh. Ambalaaskuna oo wasiirku dhawaan ugu ballan qaaday kadib markii ay maamulka iyo mas'uuliyiinta caafimaadka ee degmadu u soo gudbiyeen baahida ambalaas ee ka jirta isbitaalkan. waxa kale oo wasiirku dhagax dhigay dhismo cusub oo lagu soo kordhin doono isbitaalka degmada Sheekh. waxaana halkaa hadallo kala duwan ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Sheekh Cabdi Cartan Xaaji Abakor, isduwaha caafimaadka ee gobolka Dr. Cabdikariin, isduwaha caafimaadka ee degmada Sheekh Ibraahim Axmed. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye wiilku ku ballan qaaday halkan inuu gaari noogu keeni doono. wiilkiiba ku keenay gaariga intii waliba ku maqnaa jiida uu ku maqnaa markuu halkan naga tagaano Hargeysa madaxdoodii ku noqonaa uu ku maqnaa jiida uu ku maqnaa 18 sanadood baan anigu maayir ku-xigeen halkan ka ahaa. waa wasiirkii ugu horeeyay intuu ballan qaado uu yiraahdo taasaan ku keenaya waliba inoo keena halkan. horena waxa halka uga sheegay laga bilaabo waxaan ku yidhi maanta waliba wasiir deegaan buu noo noqonaya anaga wasiirka deegaanka Salebaan haduu xaqaasun la saanoodiyo buu hadlay magarasoo ka ahaa shiikhna waa wasiirka deegaanka ugu noo noqonayaan hoosna caafimaadka Soomaaliland ballanqaadkii uu halkan ka sameeyay uu maanta inoo hirgalay wasiirkuna inagu wareejinaya ambalaaskii degmada Sheekh in badan ay u baahnayd. waxa la inaga rajeynayaa in sidii aynu ambalaaska u ilaashan lahayn dayacayada raxmadana ugu ilaalin lahayn inagana inuu ugu shaqeyn lahaa sidii uu daryeeli lahaa aad ilaahay ugu shukrinaa 10 cisho ka hor waxaan ka badnay buu wasiirku naga tagay halkan 10 cisho ka hor wuxuu loo ballan qaaday in uu cadaalad baan u sheegnay gaari 28 tuulo ay xukunto degmada Sheekh labada ambalaas ay yihiin qaar aan laamida ka tagi karin. ballanqaadkii uu qaaday 18 cisho kadib waa ka maanta horteelu yaala gaarigi. waxaana ugu dambeyn halka hadal ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye kaasoo kula dardaarmay mas'uuliyiinta caafimaadka ee degmada iyo dhammaan shacabka reer Sheekh in sidii ay u ilaashan lahaayeen ugana faa'iideysan lahaayeen gaarigan ambalaaska. waxaana wasiirka hadalladiisii ka mid ahaa inaanu maanta idin keenno ambalaas baahi weyn aad u qabteen oo ilaahay nagu soo asturay ballanqaadkaanu samaynay. ilaahay baa nagu soo asturay. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan in aad ku isticmaashaan kaliya wax loogu talagalay baahida loogu talagalay inaad ilaashataan.